Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa kormeeray xarumaha wasaaradaha haweenka, warfaafinta, kalluumaysiga iyo dekedda Muqdisho si uu ugu kurgalo hanaanka ay u socdaan shaqooyinka ay qaranka waayaan. Saddexdan wasaarada Ra'iisul Wasaaruhu kormeeray ayuu ugu tagay howlwadeyno ku guda jira shaqooyinka qaranka, waxaana ka xog waraystay xaaladda shaqo isagoo kula dardaarmay in laba jibaaraan shaqooyinka ay ku gudanayaan waajibka ka saaran horumarinta iyo soo celinta karaamada ummadda Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaare Khayre oo sidoo kale kormeeray dekedda Muqdisho ayaa maamulka dekedda iyo taliska booliiska dekedda ka xog waraystay shaqooyinka, caqabadaha la soo gudboonaada iyo qorshayaasha horumarineed ee dekedda si sare loogu qaado adeegyada ay bulshada u hayso. Kormeerka Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo maanta ku tagay qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda iyo dekedda Muqdisho ayaa qayb ka ah howlaha lagula soconayo hanaanka iyo hirgelinta qorshayaasha hortabinta u leh wasaaradaha xukuumadda iyo hay'adaha kale ee dowladdu ay ku leeyihiin tubaha qaranka si sare loogu qaado isla xisaabtanka, hufnaanta iyo daahfurnaanta loogana dhabeeyo himilooyinka ummadda Soomaaliyeed. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.